حبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورهاد دالين يرو waxa aad u baahan tihiin in la idin sheego ma garanaysaan. oday arrin loogama maarmee bal dhageysta caawishikeeti. ha degdeginina horta weligiin adduunka intaan nooshiin lama degdego intaynaan ku dhexdhicinin xaajada kharaarkeeda cilmi baaris baa la sameeyaa isku day baa ka horeeya fakar baa ka horeeya maxaa iiga soo baxaya ka horeysa iska jir asku gaarina karoone warka u balbalaari waxaa la yiri aqoontaada oo yar aamusni baa lagu kaabaa ama aamus baa lagu kaabaa laakiin bariyahan dambe waxaad moodaa inay ka sii darayso haddaan isqaloocin lahaa halkuu qaran iigu jira qabiil ku bedelan lahaa qalbigaan ka caroon lahaa quluubta i guban lahayd sidoodaan qaylin lahaa weligeyna ma aan qanceen wacda waa ku riday subxaanallaahi ya ilaahay taas kuguma keena adeer socon mayso walaalayaal kowdhe xabiib shikeetina biyaha aad dabada ku dhagantihiin guntoodu ogya qorshana uma fiirsataan qisiya faalla kama qortaan horaad qalab qaadataan waxaasaa ina qarribay jah harwashow iga aamus dadkaan la hadlee saaxiib amar dawla muddaa ku soco isukaayadaa ogow qoodhaaya xero waxaad qabo oran lahayd hortaabaa la qaayibaye hadday qurux dhali lahayd ka qaada wixii cuntama inaad daf tiraahdid adigoonan danta kuugu jirtiyo faa'iidada isweydiinayn looma baahna waa saas iga joojiya saaxiibayaal waxaa qumanoon arkaa qaybtii haybtaas xunta inaan quursado aqaan qaneecana lagu helayn qadarin baan idiin hayaa qudhaydaad ku weyn tihiin waxaan nahay qoys mide adoon qumanahaaga dhigin duruuf u qaloocsamayn wakhtigana u qoorlulayn qaxwaha ma inoo shuba walaaley ama walaalow qurbaan ka galay intaan qayb ku dhiiran lahaa qoriga hool laygu yidhi qaadoo ku rid laygu yidhi qiiq iyo naar ka dhig laygu yidhi midaan isku qoys nahay dee waad ogtihiin soomaalidu waa qoys markaan ku leeyahay waa isku qoysoo cadow dibadda ama lahan iyada dhexdeeda is haysee ma ogtay aniga marka midaan isku qoysnahay markaan ku leeyahay dee qofkii soomaaliya oo dhan baa qoys iila muuqda waxa islaynayo soomaaliya oo dhan qoys bay iila muuqataa positive maskaxa markii lagu fiiriyana dee sidaasayba noqonaysaa markaan iriqaadi ma waraa qorshahaas ka dhaaf nin weyn uma quminayo qisaas uma xaadiro aakhiro qaatil lama yiree anuuba iqoonsado ileen dunidan qarriban qof kalean iska eegayay qudhiisaba maan filayn dadka kan kuugu sokeeya waa midka aad isfahantaan waa midka aad nolosha heshiis ku tihiin waa midka aad ku faraxsan tahay wax kasta oo maantayto uu helo ama wax kasta oo aad heshid beddelkeeda ayadoo ku farxaya bal qof laga yaabo weligiinba inaynaan isku saxan xeero ku cunin ama aynaan is arkin inaad ka soo dhaweysatid waa laga fiican yahay run ahaantii marka dee qofkaad nolol wadaag tihiinba dadka isugu dhowdihiin baan anigu midaas ka soo wataa anuuba iqoonsado ileen dunidan qarriban qof kalean iska eegayay qudhiisaba maan filayn qoshiya socon weyday taas qof weyn baad igu ogtahay qalloocna ha iigu iman waxaan qarfahaasu maray qisiya hadaliga ahaa qabyaaladu waa wax baas qof baa sharaf uga dhacdaa dadkaagoo qiimo badan sidee qofu doorataa kan kalena u quudarayn ilaah baa qaadiree warkiina ma qaadi karo xabiib shikeetina waa idinka qalleeyey war qabiilkiina dilay iyo aniga qolaha ii keenin saaxiibayaal walaalayaal meel kasta oo aad joogtaan dee anigu waaban ku faanaaba inaan idinla soo hadlo inaan fariimo iyo fikrado iyo
xoogaa murtiya iyo xoogaa maahmaaha idinku soo diro laakiin idinka waxaan idin leeyahay saaxiibayaal inde aqoontaada oo yar aamus baa lagu kabaa aqalkaaga oo yar ardaa baa lagu kabaa adduunkaaga oo yar iimaan baa lagu kabaa hey iga daaya dhiig saqajaanka ha igu kicinina aan idiin duceeye salaamada saqajaankiisana maahana ku kaca hadduu rabee subscribe-ta un dhag siiya Assalamu alaikum. Welcome to Islam Blossom. iska siib kabaho subscribe-ta dhag sii Yes.